دقريت كسو بعض حفيز كأحمد أخوينها مامل كهرشبل محمد عبد واري أي وحا حلق قادس لو سميه قدوميه قبل كهيران إسلام مركاسنا لو مقعابي قدوميه عصوب قبل كاسيران دقريت داسي مدلا مداح أياس لحفيز كأحمد أخوينها مامل كهرشبل كسو بعضي waxaana dikreetadu lagu magacaabay agaasimo cusub oo loo magacaabay madaxtooyada maamulka Hirshabelle ee uu degan yahay madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyadoo xilka laga qaaday agaasimihii hore ee maamuli jiray madaxtooyada maamulka Hirshabelle wareegto waa wareegtadii gudoomiyaha gobolka Hiiraan lagu magacaabo xalayto midna waa mid agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle lagu magacaabay agaasimihii hore xilka looga qaaday wareegtadu waxaan horumarinayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan lagu magacaabay wareegto madaxweyne ujeedo magacaabis gudoomiyaha gobolka Hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle markuu la tashaday gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle markuu tixgeliyay talada ay soo jeediyeen duubabka dhaqanka ee gobolka Hiiraan ama guud ahaan duubabka dhaqanka ee Hirshabelle wuxuu xeeriyay koow waxaa xilkii gudoomiyaha gobolka Hiiraan laga qaaday mudane Cumar Aadan Deeqo Cumar Baadiyow labo waxaa xilkii gudoomiyaha gobolka Hiiraan loo magacaabay mudane Cali Jeyte Cismaan saddex xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixay madaxweynaha waxaan u gudbaynaa wareegtada labaad oo ah wareegtadii lagu magacaabay agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle agaasimihii horena xilka looga qaaday wareegto madaxweyne ujeedo magacaabis agaasimaha guud ee madaxtooyada Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle markuu tixgeliyay baahida loo qabo dardargelinta howlaha madaxtooyada wuxuu xeeriyay koow waxaa xilka agaasimaha madaxtooyada laga qaaday ambassador Cabdiqaadir Cabdulle Xooshow laba waxaa xilka agaasimaha madaxtooyada loo magacaabay mudane Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir saddex xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixo waana saxiixay wadagreetadii ugu horeysay oo ka soo baxda xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabelle wax ka bedel lagu sameeyo qaabka uu shaqeynayo maamulka gobolka Hiiraan iyo maamulka madaxtooyada maamul goboleedka Hirshabelle Cabdi Fataax Zaki Bulsha TV Jawhar.